siyaasi abokor bile isaxaaq oo kamid ah gudida fulinta xisbiga kulmiye ee gobolka Togdheer ahna musharax u taagan golaha deegaanka degmada Burco maanta shir jiraayad ku qabtay magaalada Burco ayaa ka hadlay sida uu u arko xukuumadda uu soo dhisay madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi. siyaasi abokor bile ayaa weero uu ku toosinayo madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi u mariyay warbaahinta waxaana hadaladii siyaasiga kamid ahaa bile isaxaaq oo kamid ah mas'uuliyiinta xisbiga kulmiye gudida fulinta gobolka Togdheer ahna murashax golaha deegaanka xildhibaanada golaha deegaanka degmada Burco u sharaxan runtii maanta halkan waxaan ku yar qabanayaa shir jiraayad oo kooban maanta waxaan kaga hadlayaa dhowr qodob oo kooban runtii oo xukuumadda uu hogaaminayo madaxweyne Muuse Biixi xisbiga kulmiye ayaan kaga hadlayaa qodobka koobaad oo ay kamid tahay wareegtooyinka ilaa intii uu madaxweyne Muuse uu qabsaday kursiga ka soo baxay madaxtooyada oo ay tan ugu dambeysay maalintii dhowtay ugu dambeysay oo runtii dadku ay isluug badan ka muujinayaan runtii waa qodob saami qaybsiga waa la mid runtii waxaan u soo jeedin lahaa madaxweynaha run ahaantii iyadoo uu maalintii hore inoo ballan qaaday madaxweynuhu markuu murashaxa iyo markuu madaxtooyada kursiga helayba uu yiri ku ballan qaaday inaan run ahaantii aan qof walba xil helin laakiin sida ugu munaasibka uu ku qaybin doono gobol ahaan iyo saami ahaanba uu gobol ahaan xilalka iyo mansabada ku qaybinayo runtii tiina kama dhex muuqato oo gobolada fara badan baa runtii saami qaybsiga wax ka tabaya runtii taana waxaan u sheegi lahaa madaxweynaha in run ahaantii uu halkaa xoogaa qaldan baa ka jira uu ka saxo runtii run ahaantii anigu waxaan ka mid ahay mas'uuliyiintii xisbiga kulmiye ee gobolka Togdheer runtii juhdiga badan iyo dadaalka badan soo geliyay xisbiga ku dagaalamayay haddana uma ceel qabo laakiin waxaan u sheegayaa madaxweynaha in maadaama sidaa ay tahay dee gobolada imika aan ka soo jeedo kale gobolka saaxil oo aan ka soo jeedo anigu run ahaantii iyo gobolada barigaba aan saami qaybsigooda dee tabayaan وعبد الغني بافو ورباهنتا SBS TV gudaha magaalada Burco.